taliyihii hore ciidamada qaranka Soomaaliland General Maxamed Xasan Cabdilaahi Jidif oo Hon Cable TV maanta xog wareysi kooban ku siiyay isagoo jooga hotel guuleeda magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka digay dhibaatada uu yeelan doono hub uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo daldalayso gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan ay ku soo caawiso kooxda Khaatumo ugu horeyn isagoo arintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi hubkaasi khatar buu gelinayaa gobolka East Africa annaku waxaan leenahay dagaal waxaan la galay Soomaaliya rejiimkii bariga jiray Maxamed Siyaad barre ka madaxda dagaalkaasina uu dhamaaday idan colaadu haynaa ma jirto ilaa 100,000 inta laga gaaro ilaa 300,000 ayaa naga dhintay dagaalkaas maanta waxaanu aad uga xunahay in hub la soo celiyo dagaalkii la soo celiyo dagaalkaasna waxa ka masuula cawaaqibka ka imanaya waxa masuul ka noqon doona Xasan Sheekh oo imika abaabulaya inuu Soomaaliland dhexdeeda dagaal ka bilaabo arintaasina wax suurtagal maaha waxaanu yeelanana maaha dawladda Soomaaliland waxa kula talinayaa inay isku diyaariso in la dagaalanto Soomaaliya dhanka kalena Hon Cable TV uu weydiiyay bal sida uu u arko arrimaha beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay oo ku baaqda in laga soo baxo gobolada bariga Soomaaliland arintaasi sida uu u arko waxa uu yidhi والله waxaan uga digayaa in taariikhda ay xasuustaan Soomaaliland 26 Juun 1960 bay dawlad noqotay Ingiriiska ka madax banaanaatay Ingiriiska iyo Talyaaniguna waxay lahaayeen soodin bay lahaayeen demarcation line wax la yiraahdo annagu xadkeygii maanu dhaafin cidna ma gardareysayno haddii dhibaatadu ay tahay la sii wado way sii xumaanaysaa annagu waxaan leenahay laba dal oo walaalo ah oo Soomaaliya aan noqono ayaan ugu talin lahaa haddii aad bilowdaan rabshadaha imika aad soo wadaan oo Khaatimo soo howlgelisaan oo Puntland soo howlgelisaan arrinkaas wuxuu noqonayaa in xamar lagu dagaalamo la isku yimaado dhanka kalena Hon Cable TV uu weydiiyay bal sida uu arko khudbadii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo khudbadaas halkeedii bay martay madaxweynuhu ku mahadsan yahay annakaanu isku kaatirinayaa annaka difaac u diyaara annaka Soomaaliland badbaadinayna annaka maanta tiiti ka daran hadii la soo gadareysto annaka difaac inoo waddanka Soomaaliland aadan cabdi ciidle Hon Cable TV Hargeysa